oo 20 jir ah waxaan qoriga u qaatay inaan door dhulkayga ka difaacdo inta isaaq leeyahay anaa iska lascaanood uu duqeynay habeen iyo maalin maatada lascaanood joogto wax barasho wax la yiraahdo noo yaala malaha aniga tuutaa maxaa i xiray 20 jir baan ahay mustaqbal iyo dhalinyarnimo iyo wax walba waa ka jeclahay maxaa inaan furunta ugu socdaa oo dagaalka ugu socdaa wax kale maaha in 2023 reer ku dul Soomaaliya ma jiro ilaa anaga mooyee war sidee isaaq u soo hunguriyay anagoo nool 2023 ku jirno dhulkeena soo hunguriyay sidee ii door dhulkeena u soo hunguriyay sidee aqliyada isaaq maanta wiilka ugu fikiraya ee barbare iyo burco nabad wax ku baranayo anagana aan nabad wax ku baranayn ilaahay kugu dhaarshay wax loo dul qaadan karaa ma in wiil isaaq soo ordo reerkeena duqeeyo oo asliideena duqeeyo uu yiraahdo anaa iska lascaanood intuu ku yeesho ma hooyadiisa ma abiisa dhaxal u tagay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa daraawsheed waxa u sheegaya inay muuqaalkan haduu soo gaaro ay shaargareeyaan oo qof walba oo dhalinyaro Soomaaliyeed uu fariinta gaartay ku daraawiishta ku socotaba anigoo aan dhulbaanta ah oo Rasuul iyo sanaaga aan ka soo jeedo waxaan qoriga u qaatay inaan dalkayga xoreeyo dadkayga xoreeyo nin walba jaamacada iyo shaqada iyo waxa sidii dal iyo dameera joogtay iskugu imow lascaanood si aad dalkaaga u xoreysato oo aad cadowga soo duulay aad iskaga dhiciso dhalinyarooy dalka idinku idin baahan yahay si aad u xoreysataan aniga wax walba aan hayay waxbarasho walba ku jiray jaamacad walba aan dhiganayay waa soo kansalay qoriga waxa u qaadayaa in aan awooyaashay iyo ayaashay duqeynta ku socotaan ka difaaco inta isaaq leeyahay anaa iska lascaanood uu duqeynay habeen iyo maalin maatada lascaanood joogto wax barasho wax la yiraahdo noo yaala malaha aan kacno aan iska dhicina cadowga noo soo duulay ma joogno xilli wax barasho iyo xilli aan social media ku mashquulno kaliya waxa taaganahay xilli dagaal oo aan dalkeena xoreysanayno kaca oo dagaalka gala oo walaalidin iyo adeeryaashin iyo awooyaashin garab istaaga dhulkeena difaacda meel walba joogtaan dal iyo dibadba fariintan waxa idin soo diray walaalkiin meel walba joogtaan qof walba dhulbaanta aniga tuutaa maxaa i xiray 20 jir baan ahay mustaqbal iyo dhalinyarnimo iyo wax walba waa ka jeclahay maxaa inaan furunta ugu socdaa oo dagaalka ugu socdaa wax kale maaha in 2023 reer ku dul Soomaaliya ma jiro ilaa anaga mooyee see ku dhacday in isaaq uu soo hunguriyay see ku dhacday war dad madax banaanahay oo xoriyad leh oo gumeesta la soo dagaalamay taariikhda aan sheeganay ma been baa dhalinyaro war kaca oo meesha ka kaca oo dalkeen difaacda dhalinyarada isaaq ee hooyo caani isiida ah ee ku shaax iyo kafee ku cabay Hargeysa iyo Berbere iyo Burco